kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada halkani waa durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbin doonaa xaaladda muqdisho maanta ay ku sugan tahay dagaal ayay qarka u saaran tahay kadib markii mucaaradka ay hubkooda la soo baxeen sidoo kalena dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadii ugu badnaa ay dul dhoobtay xarumaha iyo guryaha markaasi ay degan yihiin madaxda mucaaradka waxaanu idiin soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada muqdisho inta guda galin marka koowaad soo dhawo muuqaalka la igare sidoo kalena nagu soo biir haddaadan horey noola joogin waa hagaag magaalada muqdisho sida aad aragtaan maanta xaaladeedu waa ay qarsan tahay haddii xasan sheekh maxamuud uu lahaa qof iyo doorasho maanta waa qof iyo qori isaga ayaana sabab u ah in maanta muqdisho marxaladan adag ay gasho haddaba waxaanu idiin soo gudbin doonaa xogo xasaasi ah magaalada muqdisho waqti xaadirkan xaaladda ay ku sugan tahay meel khatar ay haatan arrinta gaartay waxaana haatan muuqato in xasan sheekh maxamuud iyo mucaaradka markan ay fooda isdari doonaan maalinta berri ah waxaa lagu ballansanaa banaanbaxyo mucaaradku ay markaasi soo abaabuleen laakiin hadda sheekada waa isbedeshay banaanbaxyadii waxaa kasoo hormaray in dowladdiiba ay ciidamo sii geyso guryihii mucaaradka si loogu xabiso guryaha oo ay uga soo bixi waayaan balse mucaaradka arrintaa waa kasii gaashaanteen ciidamo ayay diyaarsadeen dhammaan madaxda mucaaradka waxay ka guureen xindaabka xalay ayaa ugu dambeysay xasan cali khayre waa ka guuray waxayna isugu tageen guryaha markaas ay ka degan yihiin magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadaha mirinaayo oo kale sheekh shariif ayaa degay sidoo kale saybiyan waxaa degay cabdi qaybdiid iyo xubno kale oo hogaaminayo xasan cali khayre oo kale dayniile waxaanu idiin soo gudbinayaa axmed toronto ayaan qadka taleefanka si toosa usoo gelinaynaa isaga ayaana ka wareysanaynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho xaaladda muqdisho aad ayay u qasan tahay saacadihii ugu dambeeyey waxaa la arkayaa ciidamo aad u fara badan oo gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan wata oo magaalada muqdisho degmo walba lagu soo daadiyey iyo ciidamo aad u xoog badan oo soo gelaya gudaha magaalada oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha madaxweyneedkiisu dhamaaday waxaan ognahay in siyaasiyiinta mucaaradka intooda badan ay u guureen meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada muqdisho iyagoo ka xeeladaysanaya sidii triibkii hore ku dhacday ee ciidamada lagu horgooyey inay bixi waayeen intii oo kale lagu sameeyo sheekh shariif sheekh axmed ayaa wuxuu u guuray mirinaayo isagoo degay gurigii cali mahdi sidoo kale xasan cali khayre ayaa isagana waxa uu degay degmada howlwadaag xildhibaan jacfar guri uu leeyahay ayuu ka degay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo maxamed xuseen roble iyo rag kale oo badanna waxa ay degeen saybiyaano si ay halkaa uga abaabulaan iyaguna banaanbaxa berito hase ahaatee dowladda oo ka gaashaamanaysa inay fashiliso banaanbaxa berito ay qorsheeyeen mucaaradka ayaa dhammaantood waxay wada kordhigtay ciidamadii ugu badnaa haddana magaalada muqdisho waxaa una aan afka ka bixin rasaasta dhinac kasta wuxuu isu diyaariyey dagaal siday u geli lahaayeen mucaaradka ciidamadii ugu badnaa ayay diyaarsadeen oo gaaf wareegaya inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyo goobaha ay degan yihiin dowladduna ciidamadii ugu badnaa ayay soo gelisay magaalada jidadka inta badan waa xiran yihiin socodka iyo dhaqdhaqaaqa xaafadaha iyo degmooyinka kala duwan waxaa laga dareemayaa ciriiri aad ballaaran iyadoo la arkayo ciidamada xaram cad gorgor booliis nabad sugid kulli ay wadooyinka ay xirteen waxaana hadda cadaadiska ugu badan uu ku socdaa madaxweyne sheekh shariif iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kasoo guuray guryihii ay hore u deganaayeen wafdi ayaa maaragtay oo wada hadallada ah ayuu u diray xasan sheekh maxamuud mucaaradka hase ahaatee kulli way ku soo gacan sayreen wada hadalladaasina way fashilmeen kaas oo doonayay inuu ku baajiyo banaanbaxa berito xasan waxaa moodaa inuu mar dhinacna oo xoog ka adeegsanayo dhinacna wada hadal iyo maaragtay nabadoonnimo uu adeegsanayo mucaaradka uu adeegsanayo hase ahaatee mucaaradku waa ogyihiin tii hore ayaa waxa ay kala kulmeen oo ogyihiin tanna waa ka gaashaanteen beritana waxaa la filayaa inay sameeyaan banaanbixii ugu xoogganaa haddana ciidamadoodii iyo iyagu waa isdiyaariyeen waxaa la sheegayaa in ciidamo fara badan
oo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ay u galeen dhinaca mucaaradka iyada oo aan ogaan doono iyadana wararkaasi sida rasmiga ah xilliga ay soo baxaan marka xaaladda muqdisho aad bay u taagan tahay xabadda umbaan afka ka bixin war wanaagsanna lagama soo sheegayo cabdiraxiinow. waa mahadsantahay Toronto. Waxaad sheegtay mucaaradku inay abaabulayaan dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in muddo kororsiga Xasan Sheekh Maxamuud ay laga horta la joojiyo, sidoo kalena burburinta dhulalka la joojiyo. Haddii ay xuquuqaad ka maqan ay raadsanayaan oo banaanbax ay qabanayaan, banaanbaxna waa la yaqaanaa, waa mudaharaad dadka ay ku muujinayaan aragtidooda iyo ra'yiga ay qabaan. Maxaa keenay in ciidamo intaa la-eg ay diyaarsadaan haddii banaanbax kaliya sheekada ay ku kooban tahay? waa mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan waxaa og tahay dowladda federaalka Soomaaliya ma doonayso inay banaanbax iyada looga soo horjeedo magaalada muqdisho lagu qabto oo mucaaradku ay qabtaan maadaama dowladdu aysan ogolayn oo iyagu jidadkii iyo waddooyinkii ay mari lahaayeen dadka sidaas silmiga nabadgelyada u banaanbaxaya ay mari lahaayeen haddii ayba dowladdu diidan tahay taas ayaa waxay mucaaradka hogaamiyaasha mucaaradka ku qasbaysaa iyaguna in ay ciidamadaas ka xiraya waddooyinka iyo jidadkii ay mari lahaayeen iyaguna inay raadiyaan ciidamo ay ku furaan waddadaas oo banaanbaxayaasha nabadgelyadooda ilaaliya maadaama dowladdu laga yaabo in ay xoog u isticmaasho banaanbaxayaasha ama mucaaradka ay u isticmaasho taasi waxay keenaysaa iyaguna inay ciidamo raadsadaan ciidamana waa raadsadeen oo ciidamadii ugu badnaa ayaaba hadda ay maaragtay kusoo bandhigeen degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir. waa tahay haddii marka mucaaradkana ay ciidamo diyaarsadeen, dowladdana ciidamo ay dulgeysay goobaha haatan ay degeen xubnaha mucaaradka ah ee magaalada muqdisho, wadahadaladii beesha caalamka ay ku baaqaysay maalmihii lasoo dhaafay ee lalahaa dhinacyada miiska wadahadalka ha kusoo laabtaan, maxay arrintan ka bedeli kartaa? labada dhinacba beesha caalamku waa ay la hadashay xasan sheekh maxamuud aa ugu dambeeyey xalayta fariimihii ugu badnaa oo ka yimaaday safaaradaha reer galbeedka ayaa maaragtay loo diray waxaa loo sheegay inuusan waxbana samayn karin tallaabana uusan qaadi karin tallaabo ciidanna uusan mucaaradka ku wajihi karin banaanbaxna uusan tallaabo uusan u qaadi karin qolada kale mucaaradka laftigooda waa loo diray inaysan wax dhibaata iyo amniga iyo magaalada iyo xasiloonida magaalada wax u dhimaya inaysan samayn karin dhinacyadu waa ay qabaan digniinahaas laakiin digniintaasi de ma aha mid joojinaysa labada dhinac inay maaragtay isku dhacaan muqdisho maanta waa xabad waa lama huraan sababtoo ah xasan sheekh maxamuud inuu xoog kursi kusii fadhiyuu rabaa mucaaradkana uu isagu xoog u adeegsado oo maaragtay isaga ayaa doonaya dhibaateyn doonaya marka nin wada hadal ogol maaha nin xal raadinaya inuu xal raadiyo ogolna maaha mucaaradkuna waxa ay doonayaan waxay tahay in xal la isugu yimaado arrimaha la isku hayana si maaragtay nidaamsan oo wanaagsan looga wada hadlo wixii la isku raacana in maaragtay doorasho lagu aado ayaa la rabaa laakiin xasan waxaad moodaa inuu doonayo inuu waddada diblomaasiyadda iyo wada hadalka uu ka leexday uuna aaday xoog iyo ismuquunin taasna ninkii ku adkaada waa arki doonaa. waa tahay Toronto, gabagabadii ayaan isla soo gaarnay. maxaa la fili karaa saacadahana soo aadan? saacadahayna soo aadan kolley waxa ugu weyn ilaa iyo berito waxaa qolo waliba ku dadaali doontaa inay ajendayaashooda ay meel marsadaan mucaaradka waxa ay u diyaar garoobayaan inay banaanbaxay ugu weynaa ay sameeyaan oo ay qabtaan taana ay meel mar ka dhigaan dowladduna waxa ay isku dayeysaa inay baajiso mucaaradkana cadaadis amni iyo mid siyaasadeed ay saarto banaanbaxaana ay fashiliso marka waa arki doonaa qolo waliba sida ay ugu guulaysato qorshaheeda iyo doonisteeda hase ahaatee labada qoloba waxaa moodaa inay madaxa istari doonaan saacadaha soo socda waxaana ka dhalan karaa gacan ka hadal iyo inay xabadi dhacdo haddii xabadi maanta magaalada muqdisho ka dhacdana xaalku wuxuu isku bedeli karaa si dhib yar oo ay maaragtay magaalada amnigeeda ay fawdo
iyo dhibaato ay ku noqon kartaa waxaana kaloo ognahay in xaaladdu dadku ay kala qaybsan yihiin hadday tahay shacabka siyaasiyiinta iyo dadweynaha magaalada muqdisho